16 جون وعاو يكود لوليو ومالمها حرية الصومالية صومال شكل اللي جست تاريخ ذان وحلقة بعد اللي يربى قلال كنا إنيزن أوجين هرت تاريخ ذان كود لوليو ذا لغوشة يلح 16 جون ذا لغوشة وقوي حرية إقاتين وكود لوليو اللي سويمت سيدا ذبا تاريخ ذا يا نوصو حري ما الصومالية نوصو حشي أو نتري تاريخ ذان أسوأ ما اسكت متصالحان أو تري تاريخ ذا بلدين واتن بس أجنبي نوصو ديبي هذا كله أجنبي أنا يري هذا قاطع كود لوليو دبلدين أنا كصومالي واحد كان سنة ما هذا كله كور هرت هست عم بحر قربان لنا نهي لحدنكي قويدي مديسي لحين لباتك جون قربان لولا نهي لحدي ساع قربان لبا نهي كل لوليون لبا ميدولي وي لندن أكبلاون شركة لندن إي نيويورك إي وحا اسكو حيران حرية قابكا وقادنا إي تاريخ دين السي لندن أكبلاونا نين جنرال إنجريس oo guumaysta ah oo Soomaaliya loo xil saaray el dhijir McLeod ninkaas ayaa wuxuu la kulmay oda dhaqameedyo waqooyiga ka soo jeedo ayuu London kula kulmay waa goormee waa April 1960 waa bila un ka hor inta aanan xurriyad qaadan odayaashii mar labaad ay soo laabteen oo London ay ku soo laabteen waa June 25keeda 1960 markaas odagii guumaystaha ah McLeod waxbuu qoray dastuur dejiyay odayaashii Soomaaliyeed ee dhaqanka ayuu warqadii horkeen wuxuu yiri ka waran 26 June hada idin fasax xuridiina aqaadataan laakiin waa inaad doorasho gashaan waa nidaam waa in koonfurtana lala midoobo dhageysta London lagu soo go'aamiyay ninka General McLeod ayaaba qorayba taariikhda June 26keeda in xurriyada waqooyiga ay qaataan odayaashii Soomaaliyeed waqooyiga ka midna way ku raaceen gacanta la isgeliyay Abu Cadaan oo maasan tahay jaf way soo laabteen odayaashii waqooyiga markay soo laabteen abaabul way galeen diyaar garow way galeen marka maxaa u dhaxeeyo July kooda Luulyo iyo June 26keeda afar maalin u dhaxayso afartaas maalin hadaa yaaban tahay asleedahay maxaa la qabtay Mareykan Canada Japan Iran iyo dalal kale oo tiro badan ayaa marka New York ayagana ku shiray waxaa la go'aamiyay markii London go'aanka lagu qaadanayay isla New York waxaa lagu go'aamiyay in Soomaaliya xurriyadeeda la siiyo kooda Luulyo waxaa soo go'aamiyay warqada soo qoray inta hadda idin sheegay Mareykan iyo Canada iyo Iran iyo Cuba iyo wax isku jirto way sheekada markay meeshaas marayso UN maadaama 15 dal ay aqbaleen in Soomaaliya kooda Luulyo loo ansixiyo inay qaataan xornimada saddex dalna ay ka aamuseen saddex dalna ay diideen saddex dalna ay ka aamuseen adiga sidaas nuqulkii lagu aqbalay oo UN uu ku aqbalay UN Soomaaliya uma sheegin taariikhda kooda Luulyo wuxuu u sheegay Italian trusteeshipka Talyaanigii haystay Muqdisho Baraawe Marko oo koonfurta haystay ila boosas loo sheegay aliyiri haye diyaar garoowe kooda Luulyo xaflada jirto magaalada waxaana idin sheegayo dhan waa documented waa qorin Muqdisho la soo imaado dabaaldeg weyn kooda Luulyo ayaa xorriyada la qaadanaya SYL marrabin kooda Luulyo SYL marrabin 26 June SYL waxay taagnaayeenba 1955 hana la soo xorriyadana anaga 60kii adi almuhim maxay idinku dalna war taariikhdan kooda Luulyo ku dhahay iyo 26 June ku dhahay United Nation Security Council golaha amaanka ee UN-ka kooda Luulyo noo ansixiyay waa iska qaadanay 26 June General McLeod oo British ah guumaysta ahay asagana qoray waa qaadan abu dabaldego fiicay hal dabaldego xornimo laakiin dhalinyaro fara badan raba inay ka jaalbiyo u malayso qori ka ah ina uga bursanay guumaystayaashii dalka laga saaray kooda ugu dambeeyay dacasku ka cararay kadibna aad dabaldeg dad u malay isla guumaystihii oo waa iska xoreyna aan leenahay aba noo soo qoray taariikhda magaalada Muqdisho markii lagu dabaaldegay kooda Luulyo 1960kina Britishki saas u taagnay Talyaaniga saas u taagnay UN-kan wafdiga noo soo direen abu halaas caawa
ku seexo beri markaad dabaaldegaysid intaas dadka usii sheeg aqoontaas ogeyn